بسم الله كوي لواتن كبش جنايو 2026 waxaan halkaan isku nimid furitaanka xafiiska xisbiga himilo qaran ee wadanka Sweden oo laga furay magaalada Gothenburg Sweden maanta furno xafiiska ugu horeeyay oo xisbi Soomaaliyeed uu ka furto qurba joogta gaar ahaan xisbi ku dhiirigelinayna dhammaan walaalaha kale iyo taageerayaasha iyo memberska xisbiga himilo qaran meel kasta adduunka joogan inay xarumo iyo maxaan ku raahdaa xafiiso ay ka furtaan tiimam samaystaan si aan u hirgelino mashruuci ahaa balaarinta iyo fidinta xisbiga himilo qaran ee qurbaha soo dhawaada dhammaan marti sharafta iyo maamulka xisbiga himilo qaran Sweden dambana waxaan noo soo geli doonaa insha Allah madaxweynaha Sheekh Shariif oo aan rajeynayno inuu madaxweynaha rasmiga noqdo madaxweynuhu hore way hadda hogaamiyaheena xisbiga himilo qaran ayaa isagoo noo soo geli doona qadka sidoo kale waxaa qadka noo soo geli doona Dr. Saadiq Inow wasiirkii caafimaadka maxaan ku raahdaa Puntland soo noqday la taliyaal soo noqday jaamacada ka furay Soomaaliya sanadkii doorashada horena u tartamay inuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu qayb ka noqdo asagana anigu magacayga waa Jiib Sagaaray waxay ii garteen guddiga tiimka markay fariisteen inaan spokesman ama afayaan u noqdo waana runtii shaqaan muddo ka soo shaqeeyay idaacadaha internationalka xataa aan waraysiyaas iyo BBC The Voice kuwa maxalliga marka shaqaan haddii guddiga isku gartaan wixii markaas fikrad lagu gaaro inaan fidiyo xagga sharciga waxa ii marta de ma ogeyn haduu Jiib Sagaar iga hormaro inaan waxba soo haraynin laba qodob aan rabay inaan ka hadlo labada asaa ka hadlay waa midda koowaad inaan sidii members aan ku heli lahayn la sameeyo iyo tan labaad oo ah maxaa la yiraahdaa in at least ID la sameeyo oo dadku waxa lagu kala garto dadkii meeshan ka shaqeynayay la ogaado marka waa kaaga mahad celinaa waxaan kusoo gabagabeynaya kaliya dhamaantiin idin salaamo idin kaga mahad celiyo inaad safar soo gasheen meel dheer nooga timaadeen aad u mahadsantihiin xitaa horta balaarinta xisbigan iyo xisbigan magaciisa inaan meel geyno xitaa haddii xisbiga noqoto waxa la yiraahdaa political program macnaha wax lagu shaqeeyo mabda ama qaab lagu shaqeeyo jiro wadan walba lagu maamulo xisbi walba wuxuu leeyahay system gooni waxba ku kala duwan yihiin waxa xasuusateen hadda Sweden xisbiyadan intaan wadankan joogno kala camal fikraday kala qabeen way tira badnaayeen qof walba wax bay qabtay European Union in lagu darmo kala camal hadda Sweden ay qayb ka noqoto xisbiyada diidanaa jira xisbiyadaas qaarkood gadaal ay iska bedeleen macnaha qofku inuu meeshii la wiligiis taagnaada maaha anoo maanta fikir qaba ayaan mar kale isbedelay idinka xiga ma leh wax walbana waa isla sheer gareynana insha Allah oo baneedna waa ku shaqeynayna cid wax laga qaranayo ma jirto laba kalimadood baan u qaatay microfonka mid waa midda halka u fadhino iyo midda aan doonayno mustaqbalka midda halka u fadhino haddaan ku horumaro waxaan aaminsanahay inta halkaan aan fadhino iskugu baan iman qabiil laakiin waxa iskugu nimid magacaas baa isku kaayake nin walbo magacaas u soo raacay sifo mid waa in salaamaya marka labaad sharaf bay tahay xiriirka iyo dad inta ku yeertay ku yiri noo hadalo waxaan salaamu alaykum